diinta islaamka jareer iyo jilaac ma kala garanayso qofkiiba mar shahaadanayo oo salaadiisana dukanayo qof islaam oo alla ka baqayo doy waan sii lahay waxaan dhihi lahaa iska dhaafa diinta islaamka ma kala bixinin jareer iyo jilaacbo waa hal qofkii shahaadanayo qofkii markaas gabadhaada ka kaxaysanayna waa inaad siisid waalaikum salaam ku dhawaad magacay waa Okaash gabadhayda nin islaam oo ajnabi ah maya nin Soomaali ma siin lahaa oo islaam laakiin aniga cunsurnimo ma aaminsan reer walba inay Soomaali yihiin dhammaan dadka ay siman yihiin gabadhaha la kala guursan karo la isgeeyo intaas aaminsanahay kulanti wacan daawadayaal idilkiinba goob walba joogtaan iyo si walba nooga daawanaysaan halkaas sida tooska haatan nagala socotaan waa Somali Voice TV haday tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe noo saar dabcan waa maalin kale oo qurux badan waxaad alaabana nooga barateen in aan idin la soo wadaagno barnaamijyada ra'yi ururinta ah ee isla markaasi aan ra'yigooda ku ogaanayno dadweynaha ku sugan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi barnaamijka maanta aan wadano ayaa noqon doona gabadhaada ama walaasha ma siin lahayd nin islaam ah oo ajnabi ah sidoo kale waxaan su'aal kale ku weydiin doonaa oo u dhacaysa sida tan gabadhaada ma siin lahayd nin islaam ah oo Soomaali ah beesha jareerweyne dabcan waxaan ogaan doonaa ra'yiga dadweynaha adigu see daawade sidee ayaad arrintaasi u aragtaa maxaa ka dhiilay isla socod wanaagsan ayaan leeyahay daawadayaal kusoo dhaw Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga hadii aan wax ka weydiino su'aasha tan gabadhaada ama walaasha ma siin lahayd nin ajnabi ah oo islaam ah nin ajnabi oo islaana gabadhayda ama walaashayda waa siin karaa hadduu yahay nin dukanayo oo muslim hadduu yahay nin gaal hadduu yahayna maya lama siin karo ayadina ma keensan karto sidoo kale gabadhaada ama walaashaada ma siin lahayd nin Soomaali ah oo islaam ah oo beesha jareerweyne ah waa siin karaa hadduu dukado nin islaam yahay oo ay isjeclaadaan waa siin karaa waxay u dhalatay nin ragay u dhalatay haddii dabacad ay ka hashiyaan waa siin karaa kusoo dhaw Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga su'aasha maanta aan wadano ayaa ah ma siin lahayd walaashaada ama gabadhaada nin islaam ah oo ajnabi ah ودوي ولا القارئ مقعي وهيلول عبد الله فارح كنا ما سنتي سؤال سأيوي دي سجوابت هذا نك جنب جورته ولومد دتك ولا إنما آية القرآن قال إنما المسلمون قوة قف صدوا قف مسلم أوي هي قبل وصيل لها إنك صادق قبل عن ربنا لكن ولا شيء وصيل لها لكن أديو قف جنبي أو كريستنا أوي أنت مسلم كويس يسنن ما يمسيه sidoo kale gabadhaada iyo ama walaashaada ma siin lahayd nin islaam ah oo Soomaali ah oo beesha jareerweyne ah wasiil la hadii ay ka hesho dooqeeda ku ganacdo way leeyahay Soomaalida cunsurinimada aaminsan maxaa u baaqilay waxa sayida ma fiicno diinteena waxay ka hadashay in fartay inaan ku dhaqmano ma aniga diinta aan ahaanteeda aaminsan way waxaan ninka waa inay hebel isma guursano isma gooyno waxa sayida waa dhaqan wax qof hadda walaalka oo muslim loo cunsuriyay ma aha kusoo dhaw Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaada su'aasha maanta dadweynaha weydiinayno ayaa ah gabadhaada ama walaashaada ma siin lahayd nin islaam ah oo ajnabi ah bismillah magacaygu Umar Cabdinuur Ahmed ma garanayo wax ka reebay qof islaam ah oo ajnabi ah ama wuxuu rabo haado in la siiyo wax ka reebay ma fahmayo soo la siin lahaa qofka dumarba muslim yahay oo walaalkan wakaas walaal su'aasha kale ayaa ah ma siin lahayd gabadhaada ama walaashaada nin islaam ah oo Soomaaliyeed oo beesha jareerweyne ah waa siin lahaa maxaa soo nin walaalkii muslim Soomaaliya way maxaa waa isku midkii waayahay Soomaalida cunsurinimada aaminsan maxaa ugu baaqilay cunsurinimadu waa diin darro weeye waxa ugu baaqilaa inay iska daayaan cunsurinimada iyo wax kastoo cunsurinimo la xiriira qofna qof maartay kama sharaftanna waxa lagu kala sharaf badan leeyahay waa Ilaahay ka baqitaanka marka waxa oran lahaa wixii cunsurinimada iska daayeen marna ma fiicna adigoo ku bilaabaya magacaada su'aashan dadweynaha weydiinayno maanta ayaa ah sidaad u aragtaa ama ma siin lahayd gabadhaada ama walaashaada nin ajnabi ah oo islaam ah
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xaawo cabdulaahi nin islaan ah oo ashahaadayo diinta islaamka yaqaano gabadheedu waan sii lahay amba wiilkayga waan sii lahay hadday naag tahan okay su-aasha kaleta ayaa ah sidee u aragtaa ama ma siin lahayd nin Soomaaliya oo islaam ah oo beesha jarirweynaha gabadhaada ama walaashaada ma siin lahayd diinta islaamka jareer iyo jileec ma kala garanayso qofkiiba mar ashahaadanayo oo salaadiisana dukanayo oo qof islaan oo alla ka baqayo doy waan sii lahay Soomaalida cunsurinimada aaminsan maxaa ugu baaqi lahayd waxaan dhihi lahaa iska dhaafa diinta islaamka ma kala bixinin jareer iyo jileecbo waa hal qofkii ashahaadanayo qofkii markaas gabadhaada kaa kaxaysanayana waa inaad siisid oo kaa asturayo kusoo dhawow Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaada su'aasha maanta dadweynaha weydiinaya ah gabadhaada ama walaashaada ma siin lahayd nin islaam ah oo ajnabi ah waalaikum salaam ku dhawaad magacayga waa Okaash gabadhayda nin islaam oo ajnabi ah maya nin Soomaali ma siin lahaa oo islaam ah laakiin su'aasha waxay tahay tan kale oo raacsan ma siin lahayd gabadhaada ama walaashaada nin islaam ah oo Soomaaliyeed oo beesha jarirweynaha hadduu Soomaali uu galahaa jarirweyne ha ahaado raaxweyne ha ahaado cid kale ha ahaato waa siin Soomaali hadduu uu galo laakiin jinsi kale maya islaam ha ahaado haddaba Soomaalida cunsurinimada aaminsan maxaa ugu baaqi lahayd aniga cunsurinimo ma aaminsan reer walba inay Soomaali yihiin dhammaan dadku ay siman yihiin gabdhaha la kala guursan karo la isgeeyo intaas aaminsanahay adigoo ku bilaabaya magacaada ku soo dhawow Somali Voice TV su'aasha maanta dadweynaha aan weydiinayno ayaa ah sideed u aragtaa ama gabadhaada ama walaashaada ma siin lahayd nin islaam ah oo ajnabi ah bismillaah magacaygu waa Axmed Nuur Cali waan ku dhawahay barnaamijka su'aasha jawaabteeda aan u gudbo ma siin lahayn mid kale to nin Soomaali ah oo islaam ah oo beesha jarirweynaha sidoo kale ma siin lahayd gabadhaada si fiican waa siin lahayn haddaba dadka Soomaaliyeed ee cunsurinimada iyo midabta koorka aaminsan maxaa ugu baaqi lahayd wallaahi horta waxaa ugu baaqi lahay anaga muslim haddaan ahay micnaha diin ilaahay waxnu siiyo suuban marka waxaan fiicnaan lahayd in waxaad laga digtoonaado qof muslim oo walaalka oo Soomaali ah wax lagu fuuqooqo ma jirto sabab lagu fuuqooqo ma jirto marka hadduu gabadha ka soo doonto iyadan raali ka tahay waxaa fiican in micnaha la siiyo ku soo dhawow Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga gabadhaada ama walaashaada siin lahayd nin islaam ah oo ajnabi ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ayaan Maxamed Cali waan siisalahay maxaa siisoo ajnabi oo islaamnimada wax kasta qaali waan siisalahay haddaba sidoo kale nin Soomaali ah oo islaam ah oo beesha jarirweynaha hadduu ka soo doonto walaasha ama gabadhaada sidoo kale ma siin lahayd waan siinaa maxaa sii waay Soomaali oo islaan oo jarir sheegtay ilaahay ma dhibaan ba ahaad waa siinaa islaamnimada muhiim ah Soomaalida cunsurinimada aaminsan iyo midabta koorka waxa loo yaqaano maxaa ugu baaqi lahayd inay iska dhaaftaan saaxiibtay u dhiib inay iska dhaafaan cunsurinimada islaan leh waa wixii islaan waay wixii ajnabi oo islaan waa siisnaa laakiin wixii kristaan ay ma siisanay wixii jarirweyne wixii kasta kullu islaam waay ummadna Nabi Maxamed waay waan siisanaanay gabadheeda ku soo dhawow Somali Voice TV adigoo ku bilaabaya magacaaga ma siin lahayd gabadhaada ama walaashaada nin islaam ah oo ajnabi ah horta waan dhawahay walaalaan magacayga waxaa Maxamed Amiin horta ninkaas hadduu ajnabi yahay wax ka horeysa inuu islaan yahay soo hadduu islaan yahay isjecel yihiin kasitwaasina sidoo kaleeto nin Soomaali ah oo islaam ah oo beesha jarirweynaha gabadhaada ma siin lahayd sidoo kale ama walaasha horta qabiil horta waxa la iskaaga tago ma soo fahmin jacaylkana waxa jira labadooda isjecel yihiin maaha inaa qabiilkan uu danyar yahay qabiilkan waa laciif inaa goorta ugu diido haddii isjecel yihiin si lahaa Soomaalida cunsurinimada ama midabta koorka aaminsan maxaa ugu baaqi lahayd horta waxaan dhihi lahaa ma aragtay abti adduunkan ilaahay bini'aadamka isku mid maaha dad baa dawryar dad baa wax haystaan hadduu maanta maxay ahaydey nin jarirweynuun goortaa kaa soo doonto oo cumaamad aan dhihi lahaa walaa midda kale waxaa fikradda qaldana aaminsantiin iska daaya